السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة وحكاها الله حلبان أحمد محمد سامع عرفو مركز دول الرئيس وحا السلام يا ضمان ومد الصوماليين ميلك السيد دبدا مرة وحا السلام يا مدحda qaranka ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka ra'iisul wasaare ku-xigeenka golaha wasiirada iyo dhammaan labada gole ee baarlamaanka inta ka bacdi waxaan arrin la iskula wareegayo oo la leeyahay sax maaha iyo sax weeye la leeyahay ayaan rabaa inaan si bayaan aan u cadeeyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo siyaasiyiinta daneynaya doorashada ay ka soo jeedo gobolada waqooyi ee hor socodka ah dhaqanka macal shacabka waxaanu diyaar u nahay otiina doorasho dhacdo qoob labo waxaanu kalsooni cad inayna oo aanu diyaar u nahay inay doorashada noo qabtaan guddiyada heer federaal iyo heer gobol intuba in ay aanu ku kalsoonahay ayaanu caddaynayna waxaanu kaloo caddaynaynaa in cid gaari aanay guddiyada maamulan karin cid gaarina aan soo doonaan ka yeeri karin waxa aan guddiyada annaga haddaan noogu soo baxina ay wadar ogol ay yihiin laba saddex qof oo iyagu ka hadlayaan umaddan laba qof iyo saddex qof uma afduubna waxaan si cad oo bayaan u caddaynaya in aan ka noqosho aanan lahayn ogol nahay diyaar u nahay in doorasho ay qabtaan inay jadwalkooda ku shaqeeyaan ciddii ishortaagtana aan u arkayo shaksi ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba aan u arkayno xildhibaanadii maanta hadlay ee aan ka maqnaa hoos ka yeeshay iyo aniguba aan isku raacsanay ciddii ka hor timaada waa cid wax allaala wixii dibadhaca ee doorashada ku yimaada mas-uuliyaddeeda ay qaadayaan iyagu annaga waxaan diyaar u nahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaya doorashada inay dhacdo laba guddiga iyo qaabka loo inta aan kalsooni ku qabno iyadoo aan idina ikasbayn ra'yi ahaanteyda ay tahay kalsoonideeda aan ku doonayo haddana musharax mar labaad inaan kusoo musharaxnimo aan ku doonayo ay tahay shacabkaygana ay dooranayaan waan ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.